السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولاشين حمراء long time. حمراء maanta maxay inii haysaa weeyaan. walaashin xamra maanta waxay inii haysaa xanuunada sanbabka ku dhaca. waxaa isoo weydiiyey gabar Soomaaliyeed, waxay igu tiri oo dalkii joogta, waxay igu tiri in neefta igu dhegdhegta matiibay baa i haysa. waxa weeye runtii ma dhihi karo tiibay baa ku haysa, laakiin aniga waa akhriyay xanuunada sanbabada gala. horta sanbabka laba qaybood aan u naqaanaa oo isku dhegan, wax dhuun u egna ay u dhaxayso. haddaan Soomaalinahay saasaa noo sawiranta, laakiin saas ma aha. sanbabada labada xabo isku dhegsan keliya ma aha, ama hal sanbab ma aha. sanbabada way tiro badan yihiin, baalal yaryar oo sanbabada ka baxaa jira. labada sanbabna waxaa weyn midka midigta ayaa weyn, 3 baal oo kalena wuu leeyahay, 3 xabo wey. midka bidixda 2 wey. bidixda waa 2 baal ayaa ka baxa, waa 2. waxaa ku kala dhex jira labada xabo wadnihii. wadnaha iyo sanbabkana way isla shaqeeyaan. markaa neefta qaadanayso ood soo jiidayso, sanbabkiyaa dabcan soo jiidaya. sankii iyo sanbabkii wixii way isku xiran yihiin, wuu soo jiidaya. wadnihii markaas ayuu u gudbinayaa, kadib way isla shaqeeyaan labadooda, wadnaha iyo sanbabka. weliba geeska bidixda ah ayuu 2 sanbab dhexdood ku jira wadnuhu. wadnaha ma aha maanta waxaan ka hadlayno, waa sanbabka. marka neefta hadday kuu dhegdhegayso aad aragto, waxyaabo badan ayaa koos gareeya. ma noqon karto just TB, ma aha. waxaa laga yaabaa inay neef ku hayso, inuu allergy ku hayo. marka dhakhtar iyo caawimaad raadso. marka ma rabo gabadha kaliya inaan u jawaabo, waxaan rabaa inaan dadka dhan aan u jawaabo oon u sheego wax. marka neefta dib uma qaadan karaysid. neefta haddaan dib u qaadan karaynin, problem ayaa jira jaskaaga, sanbabadaada problem ayaa ka jira iyo sanbabadaada. cudurada gala sanbabkana neefta kaliya ma aha. waxaa weeye tibayda, waxaa weeye oo kale bronkinto hadday ku gasho. Soomaali bronkinto ayaa la dhihi jiray. markuu qabow ku galo, ama egfishin markii sanbabkaaga uu galo, cuduro badan oo tiro badan oo magacyo badan ayaa ku dhaca sanbabka. marka haddaad dareento neefta ku qabataa, waa inaad dhaqso dhakhtar ama caawimaad aada raadsataa. xaabadka haddaa ka dareentid ciriiri, marka waa in aad antibiotic, kolley antibiotic ayaa loo soo qoraa dadka qaar. antibiotic ayay qaadanayaan. inkastoo ay kala duwan yihiin, oo haddii xanuunka uu sii weynaado uu neef isu bedelo, markuu weynaado neefta
waxa uu isu bedelo neefta ka mid ah. marka in uu markaas uu u baahan yahay kiniiniyada neefta ama haylorka midda la isku buufiyo uu u baahan yahay. marka waa inaad dhakhtar aadaa isagaa kuusoo kala sheegayo inay tibay isu bedelay. markuu sii weynaado waa tibay ama waa neefu noqonaya ama wuxuu noqon karaa cancer. markaas waxa weeye marka aad dhiig ku aragto xandhuuftaada waxa weeye boog buu noqday. markaas sanbabkaagi boog buu yeeshay. markaas khatarteeday leedahay. markaas waa operation ama marka u horeysa waxay kugu dayayaan antibiotiga inuu qalajiyo oo antibiotic ay ku siiyaan. marka xanuunadan way badan yihiin, waxa keeno way badan yihiin. sigaarka ayaa ka mid ah. dadka sigaar cabka ah oo sigaarka aad u caba, dadka khamriga caba, sababka iyo beerka labadaba khatar ayuu u yahay. dadka Yurub jooga dhulka qabow oo aan dhar wanaagsan xiranin iyo kabo wanaagsan, xanuunkan wuu ku dhacaa. qabow ayaa galaya. daastig ma aragta maxaa la dhahaa boorka wasaqda daastiga. xanuunadan way keenaan. sanbabka wuu dhibaa daastiga. daamka guryaha daamka leh oo haddii aadan iska rinjiyin ama aadan soo iibsanin qalab waxaa jiro hawada banaanka kuu soo gelinaya oo qaali ah, laakiin guryaha la dhigto qofkii naftiisa u naxaayo iska soo gato. pollutionka wuu keenaa sanbabada dhibaato wuu gaarsiiyaa. marka xanuunadan qaarna kaalmaati bay leeyihiin, qaarna sigaarka iyo markii nabar uu noqdo ama khatar uu noqdo isaga laftirkiisa wuxuu u baahan yahay xanaaneyn gooni ah. dabcan haddaa isku aragto xaaka badan balqan, xaaka badan inaad tufayso oo balqan badan uu markasta aa leedahay, xabadkaaga haddii uu dhawaaq ma aragtay qaylo uu ka yeerayo oo xuuq hadduu dhahayo, dabcan sanbabka weeye problemka. ama inay neefta dadka markay neef noqoto oo de marka hore dhibaatadan waxa keena waa idin sheego waa guryaha gaboobay ee daamka yeesha, boorka, sigaarka, pollutionka, qabow ku galay ood iska maxaa la dhahaa iska taxadari weyday oo dhar badan aad xiran diiday somehow maxaa la dhahaa aadan ku fikerinba dharka badan ama aadanba aqooninba, aqoon daro ay kuu geysay in aad qabowga aad iska rarto. marka dharka qaboobaha loogu talagalay waa in ay soomaalida xirataa. meel qabow meesha doontaa ahaato haddaad joogtid dharka qabow waa inaa xirataa. kaba qabow waa inaa gashataa. madaxa waa inaa koofiyad gashataa qabowga ka ilaalisaa. marka ma aha kaliya inuu sanbabka qabow galaayo, lagu kaa geli karaa madaxa, uu kaa geli karaa maskaxda, u taaban karaa, wuxuu kaa geli karaa jirka everywhere ayuu geli karaa qabowga. marka haddii sanbabkaaga uu qoyaan noqdo waa very very dangerous. aad iyo aad ayuu khatar u yahay, noloshaada ay khatar ugu jirtaa. marka waxaa jira xataa hargab markuu kugu dhaco
hargabka qaar markuu kugu xumaado wuxuu kugu reebaa waxyaalahan xabka maaragta xabadka dhahaya. marka waxaa jira sharoobooyin ama dhakhtarka daa u tagtid wuu dhageysanaya, antibiotic ayuu kuu soo qorayaa, halkaas way ka baxaysaa, wuu qalalayaa, markaas xuuqdii way joogsanaysaa. marka la iska taxadaro. dadka neefta qabana waa inay haylorkooda qaataan ama kaniinigooda neefta weli dawo lama helin oo meesha lagaga saaro. marka waxaa walaakin tibayda daway leedahay, waa la daweeyaa, waa easy, waa la daweyn karaa. hargabkayba ka fududahay sida la sheego. maxaa loo dhahaa, marka waxaan oo dhan waxa keena waa in laga taxadaro. guryaha waa in daastiga la iska nadiifiyo. guryaha qurbaha dadka degan ee gaboobay waa inay daaqada furaan, waa in maxaan ku rahaa fresh airka u baxaan banaanka, waa inaan guriga markasta ku jirin. haddaad dareemayso culays yar xabadka, fresh airka xataa way kuu fiican tahay. ma aha in markasta aa culays xabadka ka dareento inaad cudurkan qabto. marka waxaa weeye waa in oxygenta lasoo qaato, banaanka fresh airka loo baxo. marka waxaa weeye aan islaamayaa share, comment, subscribe, thumb up. intaasa maanta ka hadlayay. haliisu dalaalo walaalahayga Soomaaliyeed. salaamu calaykum.